السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابتك كحران جنال كرومان ميديا كسو دوادا برنامج كمانتا Google waa mashiinta raadinta waxtarka leh. Maalmaheena ma wacno haddii aanan booqan hal mar Google. Wuxuu hayaa jawaabta su'aal walba oo ka dhex guuxaysa maskaxdeena iyo dhibaatooyinkeena. Haddii ay tahay cunto karis ama cilmi. Mar walba waxaan ka raadinaa Google wuxuuna nagaga yaabsadaa sida ugu dhaqsiyaha badan ee uu nagu soo saaro xalka dhibaatooyinkeena. laakiin weligaa ma la yaabtay mashiinta raadinta sida Google laga yaabaa in maalin uun gacan ka geysto sidii loo heli lahaa sababaha ka dambeeya dhimashada qof. Sidoo kale Google wuxuu ka caawin karaa raadinta inta qof ee ku lug la kiis haddii ay la yaab kula tahay. Fadlan dhamayso. Cornell waa qoraa ka soo jeeda Reykjavik, Iceland. Wuxuu kacsaday kombiyuutarkiisa si uu Google wax uga raadsado. Nasiib wanaag taasi waxay noqotay raadintiisii ugu dambeysay maadaama uu dhintay maalmo. Qoyskiisa ayay naxdin ku reebtay kadib dhimashadiisa. Saameyn ayay kala kulmeen laakiin waxay ku guuleysteen inay is xakameeyaan. Waalidiintiisa waxay xasuusteen 20 jirkan oo u faraxsanaa sida ilmo yar. Waxa kale oo dhaheen wuxuu ahaa mid nolosha u dhameystiran uma ekeen mid isdili doona. 21 bisha January 2018 hooyada dhashay wiilkan waxay u sheegtay shabakadda The Daily Record. Cornell weligii guriga ma imaanin sababtoo ah wuxuu ahaa mid aad ugu mashquulsan shaqadiisa iyo asxaabtiisa. Laakiin miyay waalidkiisa ka warqabaan xaalkiisa? Miyayse ka warqabaan hadallada maskaxdiisa ka guuxay? Xaqiiqdii waa maya. Wuxuu ahaa arday dhigta maadada chemistry-ga ee jaamacadda Glasgow University, laakiin waxay ku qaadatay waqti inuu gaaro rajooyinkiisa. Sidoo kale waalidiintiisa waxay sheegaan inuu ahaa cunuga ugu naxariista badan ee aad la kulanto. Taasi waxayna tusinaysaa inuu ahaa mid aad u jilcan. Laakiin waalidkiisa ayaa aad ugu faraxsanaa wiilkooda wayna ku faani jireen waxayna u soo koriyeen si xornimo leh taasoo ka caawisay inay kula noolaadaan Reykjavik. Wuxuu sidoo kale ka shaqeynayay buugaagta iyo xayeysiinta si uu u helo daabacaadiisii ugu horeysay. Sidoo kale wuxuu ku dhawaad ku noolaa nolol wanaagsan laakiin walaaciisii ugu weynaa ka hor dhimashadii wuxuu ahaa inuu raadsado meel uu kaga noolaado Reykjavik. Wuxuu ka baqayay inuu noqdo homeless inta badanna wuxuu ka murgi jiray arrin. Hooyada dhashay Cornell waxay warbaahinta u sheegtay in dareenkeedu had iyo jeer ahaa mid ka dhigaya inay fariin u dirto wiilkeeda waqtiyada qaar waxay weydiin jirtay wax qabadkiisa mar walbana wuxuu u sheegi jiray inuu fiican yahay. Hooyadiis ayaa mar dambe warbaahinta u sheegtay in uusan qabin xanuun dhanka maskaxda ah. Waxay ahayd gabi ahaanba nasiib darro iyo lama filaan maadaama uu u muuqday qof faraxsan mar walba. Nathalie ayaa tiri 19 bishii December Cornell ayaa si lama filaan ah isku dilay kadib markii uu saacado badan ku qaatay YouTube-ka. Abaara 5 galabnimo wuxuu fariin macsalamiin ah u diray saaxiibtiis taasoo ka dhigtay inay dabagal ku sameyso. Waxay isku dayday inay badbaadiso. Waxay taraakin ku sameysay halkuu joogay waxayna u dirtay saaxiibkeed inuu caawiyo. Saaxiibkii wuxuu gaadhay qolkiisa qiyaastii 8 fiidnimo. Nasiib xumo aad ayuu u soo daahay. Cornell ifka ma saareen waqtigaas. Dib markii ay maqashay isdilka Cornell waxay ku noqotay fajac. Laakiin waalidkiisa waxay rabeen inay helaan jawaabaha sababta uu noloshiisa si lama filaan ah ugu soo afjaray. Waxay ogaayeen inay si lama filaan ah uga heli doonaan macluumaad kombiyuutarkiisa. Sidaas darteed waxay bilaabeen inay dabagalaan Google search history-giisa. Nasiib darro baaritaankan wuxuu kaga tagay argagax. Waxay ogaadeen xaqiiqda naxdinta leh ee ah in Cornell search gareynayay qaabka la isku dilo. Wuxuu raadinayay macluumaadkan maalmihii u dambeeyay. Tani waxay waalidkiisa ka dhaadhicisay inuusan ahayn go'aan degdeg ah oo tilaabada ugu dambeysa ee noloshiisa uu ku soo afjaro waxay imaanaysaa kadib markii uu maalmo badan qorsheynayay. Hooyadiis waxay ku wargelisay barta GoFundMe ee loo sameeyay in lagu wacyigeliyo dadka falkan raba inay ku kacaan in la dagaalanka internetka ee ah ka caawiya ficilada noocaan ah in la mamnuuco waa in la xakameeyo noocyada website-yada noocaan ah. Waxay tidhi ma rabo in qoys kale waayo ilmahooda. qaabka ay u sameysay taas ayaa ah inay go'aansatay inay wacyigelin ka sameyso boggeeda si dadka lumiyay rajadii ay hadda heli karaan. Waxay doonaysaa in dadku sii jeclaadaan noloshooda oo ay ka fogaadaan go'aanada qaldan ee noocaas ah. Dhammaadkii naxdinta lahaa ee Cornell ma ahan kiis gaar ah. Tani waxay ahayd mid ka mid ah dhibaatooyinka u horseedaya dhimashada dadka da'doodu u dhaxayso 20 ilaa 35.